السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سلام صاحب بيال ما أنت نحرنا مقال كنا كجا هذا الله وجاس عصب باش مصلى على مساري وجاس لماذا قضية كسر بالعوتي إلا يأسيه كين دونا كدبنا تاريخ رقابا ماشي ودم بس سلطنة كتلسية إيش سلام ردنا هذه ولا هيدلو إن وجاس لماذا وحكي كسر بالعوتي وجاس كلي رادو وجاس حاج فرح ولا سد حويل وحنا كده حلي ويل كيساها وجاس أحمد حاج وجاس حاج أحمد ugaas xaaji axmed waxaa xalka kasii dhaxlay wuxuu dhalay hal wiil keliya xaaji maxamed adhe ugaas xaaji maxamed wuxuu dhalay saddexdii wiil mid kamid ah ka dhaxlay oo la oran jiray ugaas mahad alle wuxuu dhalay 8 wiil waxaa ka dhaxlay mid kamid ah wiilashiisa oo la oran jiray ugaas cabdulle wuxuu dhalay asigana 2 wiil oo mid kamid ah wiilashiisa waxba kama dhaxlin waxaa ka dhaxlay walaalkiis wiil oo dhalay walaalkiis oo la oran jiray ugaas cali asigana caligaas wiilka oo dhalay waxaa la oran jiray ugaas muumin wuxuu dhalay 13 wiil oo ugu weynaa ugaas ibraahim farcada asagana ka dhaxlay ugaas ibraahim farcada wuxuu dhalay 10 wiil ugaasku asna waxaa ka dhaxlay ugaas xaashi oo kamid ah 10kiis wiil mid kamid ah ugaas xaashi wuxuu dhalay 6 wiil ugaas xaashi waxaa ka dhaxlay mid kamid ah wiilashiisa 6 ahaa oo la oran jiray ugaas cabdiqaadir markuu geeriyooday shiftiya meesha ka dhaca mar kale oo sawdanadu may aadin cabdiqaadir ilmo dhalay ee waxay aadeen walaalkiis oo la oran jiray ugaas rafle kumuu nagaanin muddo kooban gudaheed wuu geeriyooday waxaana ka dhaxlay ugaas cabdullaahi dhawaan dhintay oo cabdirasaaq aabiisa marka sidaas isku dhaxleen ugaasyada cabdirasaaq waxay ka dhigan tahay inuu yahay ugaaskii 13aad markaa 13aad maqashid beesha muqsad kaliya 13kan male ugaasnimada ka hor teetalka garaadi isticmaali jireen oo sawdanaduna ilaa 800 sano garaadnimaduna waa ka fac weyn tahay 13kan isdhaxashay oo ilaa 800 sano ka hor ee dhisneed markaana waxaan rabaa hadduu ilaahay idmo inaan isla eegno meelihii ay ka talin jireen oo waxaana isku dulmarno ugaasnimadan ama saldanadan beesha habarceene koonfurta soomaaliya ka tali jirtay khaasatan xamar iyo shabeellada hoose marka xamar la maqlo dad badan waxaa kusoo dhaceyso saldanado kala duwan oo meesha kasoo taliyaan sida tii ajuraan ama tii hiraab ajuraan waxay ahayd boqortooyo oo salaadiin kala duwan hoos imaan jireen macnaha saldanado kala duwan saldanad walba deegaankeedii dadkeedii u talinaysay laakiin maamul ahaan waxay hoos tegaysay boqortooyo iyo saldanadii kale boqortooyada ajuraan hoos tegi jireen tii ajuraan markay burburtay hiraab iyo waxaa loo kala baxay haddana sidoo kale iyo mursadihii hiraabku shangaani iyo wixii koray ilaa hob iyo degnaayeen mursadana xamarweyne ilaa iyo dhinacan kale shabeellada hoose ilaa luuq ilaa iyo dowlad deegaanka Itoobiya isku xirnaayeen ayaga karalahooda dagaalo ba'an oo dhex maray imaamiyadii muqdisho isku haystay waxay dhalisay in gacantooda laga baxsho deetana mar dambe 2 imaam oo reer Ali Yacquub isdagaaleen oo mid kamid ah qaraabo la ahaa qolyaha habarceene inuu mar dambe u gartay inuu kusoo wareejiyo tolkiisa taasna waxaa ku cadeynaynaa article uu qoray nin la yiraahdo Creek oo kasoo baxay jaamacadda Cambridge University Press articlekaas wuxuu sheegaa ugaas muumin xasan cumar cabdulle ugaas muumin inuu ahaa ugaaskii u dambeeyey xamarweyne ka talinaya kana soo jeeda beesha habarceene indaa articlekaasi ku caddahay sidoo kale talyaaniga markii ugu horeysay oo koonfur kaga guuleystay dagaalka hawiyihii meesha degnaa oo magaalada xamar soo galayay sawiraantii oo ka qaaday meelihii qadiimiga ah waxaa kamid ah daaraha ama albaabada laga soo galo daaraha muqdisho way oodneedo macnaha derbi baa ku wareegsanaa inkastoo 2 imaam ay ka kala talinayeen albaabada midka ugu muhiimsan oo isku xiraayay magaalada marka iyo baraawe iyo xamar albaabkaas oo la oran jiray Laporte de Mursade albaabkaas wuxuu cadeynaya inuu la dhabar u ahaa caasimadda boqortooyada ajuraan iyo saldanadii muqdisho ama dhinaca xamar albaab isku xiran u ahaa cadeynaysa inuu albaabkaas albaab muhiim ah magaca mursadana oo ku qornaa marka kasoo tagno articlekaas Laporte de Mursade waxaa ka heli kartaa hadeertaan madaxafka talyaaniga laga heli karaa sidoo kale waxaa jiro buug la dhaho dale Somalia Origin oo asina page-kiisa 183aad ay ku xusantahay xamar iyo sidii loo kala degnaa waa soo bandhigi doonaa buugta dhan asina sidoo kale waxaa jira toor la dhaho magaceeda Anita Slavia Adam oo PhD ka diyaarisay dadka la dhaho banaadiriga buuggeeda waxay ku cadeysay page 99aad sidoo kale xamar inay afar rid lahayd
afartaas irid mid kamidana uu ku qornaa magaca mursade. Sida commonka markii boqortooyo caalamka la raadinayo ama wax deegaan maamul meel ka talin jiray waxaa la raadiyaa aataartiisa, qoraalkiisa, magaciisa, qalabku isticmaali jiray. xamar albaabada ku qornaa dhan mid walba jiwa aadisnaa, wax magacna kuma qorneen ilaa laga reebo albaabka isku xirayay marka iyo xamar, kaasoo ahaa albaabka ganacsi ee ugu weyn muqdisho ee lahayd, kuna qornaa ama ku xardhanaa magaca ah Laborto La Mursade. waxaan rajeeyaa inaad ka bogateen. la wadaaga saaxiibadiin videoga noo sheer gareeya like comment mahadsanideen.